horta saamaleelku indho kaliya maaha 16 dhibaato keena 16 cudur waxaa la ogaaday cilmi baarisyo badan la sameeyey in saamaleelku uu keeno 16 cudur oo kala duwan ay ka mid yihiin indha xanuunka indhaho darayn noqda indhaho aragooda hoos u dhaco madax xanuun fara badan qofka neerfaha kaca madax xanuun joogto ah inuu qofku yeesho dhiig karka qofka hadduu soo joodkiisa bato waxaa la ogaaday jaamacadan Harvard medical school cilmibaarisyo ay samaysay caawa keliya haddaad soo jeedo aroortii marka barashkaaga la jagareeyo in barashkaaga uu kor u kacayo oo dhiig karka qayb weyn iyo soo jeedku isku xidhan yihiin waxa macaanka ka mid a maaragtay xanuunka macaanka la yidhaahdo qudhiisa soo jeedku qayb buu ka yahay oo wuu keenaa waxa ka mid a xanuunada wadnaha ku dhaca ka mid wadna xanuunka qayb ahaan wuu keenaa waxa ka mid a allahuma mustacaan qofka oo difaaciisa aad hoos ugu dhaco oo cudurradii aan iska difaaci karin caadiga ahaa ee durigii waxaan iska difaaci karin waxaa ka mid a qofka miisaankiisa marka qaarkood uu aad u kaco ama uu aad hoos ugu dhaco waayo dadka qaarna intay soo jeedaan waxay cunaan marka miisaankoodii uu badanaya dee waxa weye qofka caawa hadduu soo jeedo inuu 2 jeer wax cunaa laga yaabaa marka uu gaajado kafee cabo shaah cabo cabitaan badan cabo marka waxaas miisaankiisa u kordhinayaan dadka qaarna waxa weeyaan way soo jeedayaan laakiin qaad buu ku soo jeedayaayo dee kaasina uu qallalayaayo miisaankiisa hoos buu u dhacayaa maarata marka soo jeedka iyo saamaleelku aad buu ugu daran yahay indhaha iyo caafimaadka qofka bini'aadamka ahba taa waxaan kula talin lahayn dhallinyarada annaga noo yimaado badankoodu waxay ka cawanayaan indha xanuun indha xanuunkooda cudur ma aha waa xanuun ka yimi indhihii markay daalaan daray bay noqdaan indhaheen waxay leeyihiin ilmo dufan leh oo borotiin leh oo markaan ilbiriqsanayno ishii baal kala ilaalinayo qofku maalinta wuxuu ilbiriqsadaa 16,000 ilaa 20,000 oo jeer marka ilbiriqsigaas ishii baalku sida caadiga isma dareemaan way dufan baa u dhexeeya borotiin baa u dhexeeya isma dareemayaan ama hadday ilmadaas dhammaato way isxoqayaan marka isxoqaan waxa weye friction bay isku sameeyaan iyagii baa isdhaawacaya finan baa soo baxaya indhihii waa casaalayaan saxaro qofka dareemaya inta ka horta olol buu dareemayaa xafeefad buu dareemayaa iftiinkaa dhibaya madax xanuun baa imanaya berri ma shaqaysan karo ilmo badan baa imanaysa marka waxaasoo dhan waxyaaba keenaya weeyaan ka yimi weeyaan qofku habeenkii saamaleela oo waqti badan soo jeeda ama ku soo jeeda mobile ama ku soo jeeda TV ama ku soo jeeda maaragtay waxyaaba kala daadaawana game iyo waxaan runtii qofka qiimo u lahayn marka waxaan kula talin dhallinyarada in habeenkii xilli hore la seexdo waayo qofka caafimaadkiisu qayb weyn buu ka yahay in uu habeenkii xilli hore seexdo beri shaqadiisay hagaajinaysaa caafimaadkiisu dhan bay maaragtay qayb weyn ka tahay waxaan xusuustaa anoo gaalkacyo jooga inan dhallinyaro ay timi taxalnimada oo master degree haysata inantaasi waan wareystay waxaan ku yidhi adigu dhibaato badan baa ku haysata dhibaatadana waxay kaa soo gaadhay soo jeedkii faraha badnaa iyo saamaleelkii iminkana waxaad u baahan tahay habeenkii inaad seexato xilli hore 9 inaad seexato oo saamaleel dambe iska joojiso haddaadan saa yeelin xanuuno badan baa kugu soo socda dhiigkar baa kugu soo socda macaan baa kugu soo socota neerfaha kacaya dhibaato badan kugu soo socota markaase toore xanuunadu labadaanaad sheegaysa waaba igu dhaceenba booramaad joogay tiri wax ka dhigan jiray waxbarasho kaga jiray 2 jaamacadood baan wadeegan jiray jaamacadda beeraha kuliyadda beeraha iyo kuliyadda iyadoo boormay waa reer gaalkacyo asalkeedu laakiin boormay wax ka dhigan jirtay waxay tiri macaanku iyo dhiigkarku labada igu dhaceenoo intaan joogay boormay 2 jaamacadood baan dhigan jiray jaamacad beeraha ah iyo mid maamulka ah tii waxay keentay tiri habeenkii inaanan seexaninba ama in yar seexdo markaasaa macaanku igu dhacay tiri waxaan kadibna ma arag dhiigkarka marka waa qisooyinka runtii la odhan karo waa soo noqnoqonayaan keligeed maaha qaar badan oo kalena waa lagu arkaa marka macaanka dhalinyaro ku dhacay qayb ahaan waxaa keenaya soo jeedkaas qayb buu ka yahay dhinaca cuntooyinka ma jiraan cuntooyin qofka haddii uu cuno caawiyo indhaha inay indhihiisu fiicnaadaan indhaha horta waxa ugu muhiimsan waxyaabaha caawinaya fitamiin eega fitamiin eega wuxuu ka mid yahay fitamiinada dufanka maaragtay laga helo marka waxa ugu wanaagsan hilibka beerka xoolaha
iyo kaaroodka dabcasaha khudradda cagaaran wada xoogay baa laga helaa laakiin saddex ugu muhiimsan waa saddexdaa weeyaan waa marka laga hadla xagga indhaha waa kaaroodka hilibka iyo beerka xoolaha beerka iyo wuxuu doonaha ahaado marka waa waxyaabaha caawinaya qofka maaragtay in caafimaadka indhihiisu ay hagaagsanaadaan oo fitamiinayga loo yeeshaan haddii la waayo maxaa dhacaya marka indhi daraay bay noqonayaan way qalalayaan had maalin walba waa noo yimaada dhalinyaro badan xaleeda ugu dambeysay ilmo yaroo waxaa laga keenay adigoo isatoo jir baa nin iska dhalinyaro ahaa indhihiisa casaan badan iyo waxa ka muuqda qalayl fara badan marka arka waxaan ilmo karaamaano hilibkii waxaan waa uu ka cadho hilibna ma cuno beerna ma cuno kaaroodna ma cuno waxa weeyaan dee qaybna baa ka maqan moogta hooyadii baan eegay waa la mid iyana marka familkana waxaa laga yaabaa inay hilibka iska yaraystaan yaa dhici karta marka hilibku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha naad ugu wanaagsan qofka ay tahay inuu maarata wax ka cuno oo borotiin ya fitamiin dhakhaatiir kale oo iyana hilibka yidhaahda hilibka weliba cas aada uga digay baa jira xagga wadna xanuunka waa la yidhaha cholesterol waxaa la laakiin hilibka geel cholesterol ma laha hilibka geel cholesterol ma laha laakiin wax walba waxay u baahan yihiin in la miisaamo beshanka lagu miisaamo waayo dad badanoo waxaa jira aan iyagu cholesterol lahayn wadna xanuun aan lahayn dee hilibka inta doona ka cuni kara oo caafimaadkooda kale u baahay annaga waxaa noogu daran wax ka mid a waqtiyada abaaraha reer miyigu waxuu noola yimaadaan 90% waxay la yimaadaan waxa weeye nabro indhaha kaga samayso koorniyada nabrada wax kale ma keenaya fitamiin la'aanta keenta waqtiga barwaaqada lama arko abaartun baa la arkaa carruurta yar jadaacada ku dhacdo nabarada ku samaysma fitamiin la'aanta keenta fitamiinka markuu yaraado fitamiin marka la siiyo ilmuhu iska ladnaanaya dhaqsuun ladnaanaya marka waa muhiim in oonta xoolaha ilaahay wuxuu xoolaha u abuuray haddii maarata aan leenahay waa lama cunayo ilahay wuxuu noogu abuuray xoolaha inaan ka faa'iidaysano kuluu washrabuu walaa tusrifuu cuna oo caba israafkun baa la diiday waxa weeye laakiin qofku waa inuu xoolihii wax ka cunaayo hilibkii wax ka cunaayo borotiinka waa inuu wax ka helaa